بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal waxaan jeclahay marka hore inaan ku salaamo salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka labaad waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa bishan barakaysan ee ramadaan inuu fadligeeduna siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa inuuna siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala naartiisa inuu naga xoreeyo. allah subxaana wa tacaala xanuunkan adduunka gebagabeeyey ee covid-19 inuu annaga iyo dadka aan jecelnahay iyo muslimiinta iyo caalamka oo dhan uu naga qabto. marka saddexaad waxaan rabaa barnaamijkan waa barnaamijkii bisha barakeysan ramadaan aan ugu talagalay aan ugu magac daray ku dadaal wixii ku anfacaya. barnaamijka magaciisa waxaan ka keenay xadiidkii nebi sal ly slam ee ahaa ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjas. waxaad ku dadaashaa wixii adiga ku anfacaya, ku dadaal hana caajisin, ilaahay subxaana wa tacaala tala saaro. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هنا عاجز إلهنا سبحانه وتعالى تلصاره. حديث كان برنامج كان عوان كيس هالك سين كاني وحرم أنت إن كهالله 10 عن كبر كرنو بشان بركيسان رمضان 10 كاس وحو يهي شيء اللي يراهدو جوكتين تا نولش بني آدم ك وحا للشيء قفك مركو هالشيء وجوكتيو inuu heli karo faa'iidadiisa, mirihiisa iyo natiijadiisa. marka bishan barakeysan waxaan ku baraysaa in aad joogtaysid acmaal fiican. acmaal waxa weeye fadli leh, sida salaada hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd sadaqada, hadday noqon lahayd qaraabo xiriiriska, hadday noqon lahayd quraan akhriska, hadday noqon lahayd ducada iyo adkaarta. waxaana baraysaa bishan in aan camal wanaagsan aan joogtayno. waxaan rabaa in aan idinla wadaago xadiidka nabiga sal ly slam ee ahaa axabu alacmaali ila allahi adwamuha wa in qalla. yacni acmaasha ilaah subxaana wa tacaala loogu jecel badan yahay agtiisa waxaa ka mid ah acmaasha joogteynta leh, haba ahaadaan hadday doonaan camal yar hadduu rab ha ahaade. laakiin camalka markaad joogtaysid aad maalin walba samaysid waqti mucayana aad samaysid, ilaah subxaana wa tacaala uu jeclaanaya camalkana uu yahay camal isaga dartiisa loo sameeyey, camal wanaagsanna uu yahay. waxa weeye nebi sal ly slam sunnadiisana lagu dayanayo. marka ilaah subxaana wa tacaala camalka joogteynta ah wuu jecel yahay. marka bishan maxaad ka baran kartaa ee camal wanaagsan oo joogteen ah inaad isweydiisid ayaan rabaa. ma salaadaad ka baranaysaa, ma zakadaad ka baranaysaa, ma sadaqadaad ka baranaysaa, ma quraan akhriskaad ka baranaysaa, ma ducadii adkaarteed ka baranaysaa, ma qaraabo xiriirskaad ka baranaysaa, maxaad ka baranaysaa, ma masaajidka inaad aadid baa ka baranaysaa, ma yani waxa weeye maxaa camal wanaagsan oo aad ka baran kartaa bishan barakeysan ee ramadaan. bisha barakeysan ee ramadaan waxay tahay waa darsi, waa jaamacad adoo galayo oo kale, waa cashar adoo baranayo oo kale, waa macalin ayay noo tahay. marka waxaan rabaa inaan la wadaago qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay wax inaad joogtaysid. waxaa laga yaabaa 30 sano lasoo dhaafay, 40 sano lasoo dhaafay, 20 sano lasoo dhaafay, subax walba marka aad kacdid, habeenkii markaad seexanaysid, musqushi intaa geshid inaad cadaygaaga soo qaadatid, aad cadayatid. waxaa laga yaabaa waqtiga aad cadaynaysid haddii lagu yiraahdo xisaabi 5 daqiiqo, 3 daqiiqo, 4 daqiiqo, 7 daqiiqo, isku koob intaas inuusan ka badnayn. laakiin waa wax maalin walba aad sameynaysid, waa wax waqti mucayana aad sameynaysid. saa daraadeed ilkahayga waxay noqdeen ilka qurux badan, urka afka ka soo baxayo ama malaha ama mataqaana kama soo baxayaan ama ur yar baa ka soo baxaya. waxa laga yaabaa ilkahayga mataqaana xanuuno badan oo imaan lahaa inaysan u imaaneyn sababtoo waad cadayanaysaa mar walba. marka waxaasoo dhanna waxaa keenaya waxaa weeye camalka cadayga ah ee aad joogtaysay maalin walba inaad samaysid. marka taasna waa mid aan raba inaad ogaataan. wax markaad joogtaysid faa'iidadiisa iyo mirihiisa iyo natiijadiisa ayaad helaysaa. waxaan rabaa inaan idinku daro qiso cajiib leh oo 10 sano soo dhaafay dhacday wadanka la yiraahdo Liberia. ninka hadda madaxweynaha ka ah waxaa la yiraahdaa George Weah. waa nin caan ah oo ciyaaryahan ahaan jiray adduunkana kooxaha waaweyn ee kubadda cagta ciyaara u soo ciyaaray. waa nin caawiyey dalkiisa markii dagaalkii sokeeye uu ka jiray. ninkaasi waa Liberian
2009kii ayuu markii uu ka retire garoobay ama uu ka fadhiistay ciyaarta kubadda cagta ah ayuu wuxuu go-aansaday inuu u ordo inuu dalkiisa madaxweyne uu ka noqdo. laakiin cilada jirta waxay ahayd weligiis iskuul ma aadin, waxaan baran, qalin ma qaadan, buugna ma qaadan, wax shahaada ama waxbarasho uu haysto ma lahan. ninkaas wuxuu sameeyey marka waxaa la tartamaysay gabar waxbaratay jaamacadda Harvard ka soo baxday oo Ellen Sirleaf la yiraahdo. markii la tartamay dadkii Liberianka ahaa waxay haystaan 2 qof wadanka soo caawiyey muddadii dhibka uu ku jiray, caalamka dhan laga yaqaano, laakiin waxba aan qorin, waxna aan akhrin, waxa weeye aqoon badanna aan lahayn, ciyaarta mooye, iyo qof waxa weeye jaamiciyad ah. waxay ugu shubeen oo go'aansadeen in Ellen Sirleaf gabadhii ay siiyaan jagadii madaxweynenimada. iyadaa qaadatay, iyadaa wadankii madaxweyne u noqotay. Liberia iyadaa madaxweyne ka noqotay 2009kii. wuxuu go'aansaday George Weah waxa lagu haysto oo dadku ugu codeynin in ay tahay waxbarashada. buug iyo qalin buu qaatay, wuxuu ka bilaabay high school, dugsi sare ayuu ka bilaabay. wuu baxay 3 sano ilaa 4 sano oo dugsi sare ayuu soo dhameeyey. wuxuu yiri intaan kuma joogsanayay, waxaan aadayaa jaamacad ayuu galay. 4 sano ayuu soo dhameeyey oo ganacsi ah, business ah. haddana wuxuu yiri intaas iguma filna, waa inaan tuso dadkayga nin wax bartay inaan ahay. wuxuu ku noqday jaamacad 2 sano wuxuu soo dhameeyey master ah, 2 sano ilaa 3 sano master degree uu soo qaatay oo maamulka ah. 9 sano waqti ay ka soo wareegatay ayuu wuxuu ku soo laabtay Liberia. markii gabadhii madaxweynaha ka ahayd Ellen Sirleaf iyadana ay kasii deegi rabto ayuu isagana wuxuu go'aansaday inuu mar kale u tartamo. markan waxa weeye isagii qof kale tartamayay, dadkii oo dhan way arkeen in wadankii wax u qabtay, in haddana waxa weeye wax bartay, isagii waa loogu shubay. maanta Liberia madaxweyne waxa ka ah George Weah. wuxuu sameeyey joogteen 9 sano ilaa 10 sano ah ayuu wuxuu joogteeyey wuxuu rabay inuu gaaro horumarkuu rabay inuu gaaro. marka waxaan rabaa tusaalahaas, waxaan rabaa xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam, waxaan rabaa qisadaas maanta inaad ka qaadataan barnaamijka Ihris calaa maa yanfacuka oo mantaqaana isweydiisid Ramadaan markuu dhamaado maxaad ka baran kartaa, casharka ka qaadan kartaa, maxaa kuu noqon kara darsi, maxaad joogteyn kartaa. insha Allah inta aan iskaga arki doono casharka ku xiga, waxaan rabaa inaad cajiladan la wadaagtaan dadka saaxiibadiina, dadka walaalihiina, dadkaas dheheysaan waxbay ka faa'iidi karaan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.